بسم الله الرحمن الرحيم مقعي محمد جامع waxaan isku dayayaa inaan sharaxo casharo ku saabsan Microsoft Office Word 2007 programkan Word 2007 ama Microsoft ayaa iska leh wuxuu ka mid yahay barnaamijyada Office la isku yiraahdo ee toddobada ah ama sideedaba ah ay leedahay shirkaddan software samaysay MS loo soo gaabiyo ee Microsoft programkan waxaa loo isticmaalaa waa program inta badan aad loo isticmaalo oo warqadaha iyo riboodada iyo waxa lagu diyaarsado sida journalada oo kale waa barnaamij aad iyo aad loogu isticmaalo sidaa darteed barnaamijkan waxaan ka sameeyay dhowr casharo fara badan casharkan waxaan ku eegi doonaa casharkii koowaad lesson 1 wuxuu ku saabsanaan doonaa environment ama deegaanka ama waxyaabaha marka barnaamijka aad furtid ku muuqan doonaa sidaa darteed haddaba waxaad u baahan tahay intaan casharadan bilaabin computerkaaga inuu ku duwan yahay Microsoft Office Word 2007 ama Microsoft Office 2010 oo kale way labadan version difference farqi badan uma dhaxeeyo waa laba version isku xigay marka 2007 hadaad baratidna 2010 oo ku shaqeyn kartaa inagoo isku day doonta casharada ku dhex jirno meelaha ku kala duwan yihiin inaan eegno marka adiga waxa laga rabaa kaliya ama in 2007 uu kugu jiro ama inuu kugu jiro 2010 oo ah 2007 ama 2007 version midun casharadan waxaan si toos u soo gelin doonaa website-kan ku leenahay sahalsoftware.com ama hoyga aqoonta.com ama page-kan ku leenahay Facebook-ga ee sahal software baad kala socon doontaan casharadan iyo casharo fara badan oo ku saabsan IT-ga ama teknolojiyadda casriga ah ee la isticmaalo dunida sidaa darteed marka ka faa'iideysta waayahay aan u soo noqdo casharka haddaba aan guda galo marka ugu horeysa computerka ku duwatid Office 2007 ama 2010 ama haddaad rabtid inaad ogaatid computerka inuu leeyahay kale siyaabo badan baad ku ogaan kartaa halkan banaankan desktop-kan oo ah halkan waa desktop haddaan right click ka siiyo dabcan on new dul istaago waxaa dhinacan iska furaysa si aad arkaysaanba listkan haddaad si wacan u eegtid shortcut-ka waa kan Microsoft Office Word document marka dabcan computerkayga uu ku duwan yahay Word document kuwan oo barnaamijyo kale kale inuu casharo kale ku arki doono sidoo kale waxaan ka ogaan karaa in computerka uu leeyahay ama aan ka furan karaaba inaan tago calaamadan startida ah ama calaamadan Windows-ka 7 ku la yimi ama Vista ay la timi dabadna waxaan leeyahay all programs dabcan halkan ayaan ka eegayaa inuu ku duwan yahay computerkaygu Microsoft Office dabcan waad u jeedaan markaas inaan ku dhuftay waxa ku soo baxay barnaamijyada Microsoft Office oo intan oo ah dabcan kan hadda dhiganayna wuxuu ku saabsan yahay waa Microsoft Office Word 2007 halkan ayaad ka geli kartaa haddaad double click siiyo dabcan barnaamijka Word-ka ayaa toos soo furaya dabcan anigu waan soo furtay waa halkan ii yaala hoos calaamadda W-giisa wata waa kan waxaynu ku eegi doonaa marka environment-gii ama muxuu ka kooban yahay xayndaabka ama xuduudda uu leeyahay barnaamijkan markaad soo kicisid maxay tahay ka soo qaad barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa intan ayaan ku eegi doonaa anoo isku dayaya casharada inaan aad u yareeyo si aan looga caajisin time badan oo qofku uusan uga qaadan casharku uuna u fahmo casharka ka koowaad waa title bar waxaa leedahay halkan weey waa halkan document 1 ayaa ku qoran hadhow haddaan save gareyno magaca lagu bixiyo oo meesha ka muuqanayo sidoo kale waxaa ku cadeynaya shirkadda samaysay barnaamijkan ayaa Microsoft iyo barnaamijka ku jirno Word ah marka line-kan dheer ayaa waxaa la oranayaa title bar isla line-kan dheer control box ayaa ku jira oo meesha laga controlayo oo ah intan waa minimize kan maximize iyo close inta yar waxaa leeyahay control box oo haddii cashar aadan fahmin environment-ga barnaamijka hadhowto casharada dambe uu kugu adkaanaysa inaad la qabsatid waxaan kaloo ku eegi doonaa quick access toolbar oo aynu u jeedno intan yarta ah ee halkaas taala save-taas calaamadan undo tan redo newdan intan ayaa waxaa leedahay quick access toolbar halkan ayaana lagaga soo daraa waana waxyaaba shortcut-ka markasta isticmaalsid banaanka ay dhigan sida email-ka oo kale quick printer-kan oo kale print briefing oo kale spell and grammar-ki banaanka ay dhigan simple waxaa leeyahay quick access toolbar oo spell and grammar-ka haddaan rabnaa banaankiisa simple oo ku dhufanayaa dabeedna halkan uu iska imaanayaa waka spell and grammar sidoo kale waxaa jira waxa la tabs markuu way fara badan yihiin waxaa ka mid ah waa home tab kan waa home marka tab baa raacsan home tab insert tab page layout tab mid kastana waxaa ku jira tool fara badan sida ka muuqata ayaa ku jira
versionadii ka horreeyay 2007ka sida Microsoft Office 2003 oo kale ama 2000kii ku horreeyay waxay iyagu yeelan jireen menu wax leeyahay menu oo markaan home taabto dabcan list ayaa isfuri jiray menu ayaa loo jiray marka kuwan waa taabab waa kuwan waxaan ballaaranaysaa safar ayaa taab loogu magac daray sidoo kale waxaa jira MS icon oo aan ku arki doono versionadii hore ee Office-ka haddaan ku dhufto waa calaamadeedka icon-kan Microsoft ee iska leh MS waa Microsoft haddaan ku dhufto dabcan waa menu iyadoo qaabka menu ay isu furaysaa oo new-gan iyo open-tan iyo qaabka isu furayso marka waxaan ayaa inoogu jira MS icon-kan waxaan ayaa inoogu jira oo aynu isticmaali doono aynu mid u arki doono haddii alla idmo waxaa kaloo jira maxay rules rule-ku waa masarada halkan taala waa laba rule masarada tan halkan taala oo aad aragtaan iyo tir dhinacan taala dabcan labadan rule ama ruleskan waxaa laga saaraa koonaha yarka haddaan ku dhufto way qarsoomayaan haddaan taabtana way soo geliyaan waxaa kaloo jira scroll bar oo dabcan scroll barku waa kuwan oo xabaddan hadda ku muuqata oo aan page kor uga qaadi karayo marna hoos uga dhigi karayo iyo mid kale dhinacana oo bidix iyo midig loo kala jiido oo hadda aan muuqan oo markii qoraal fara badan la qoro iyo dabcan timaada waxaa la isku yiraahdaa scroll bar ayaa kuwa la isku yiraahdaa waxaa kaloo jira zoom oo zoomku waa kee halkan hoos isku yeelaa oo page-ka marna waad ka soo dhawaysanaysaa marna waad ka fogeynaysaa kasoo haddaan ku dhufto minuska yarka qoraalku iga turkaya wuu yaraanayaa dabcan sida idin muuqata wuu sii yaraanayaa wuu sii yaraanayaa wuu sii yaraanayaa wuu sii yaraanayaa haddaan kan ku dhuftana waa maximize usoo noqonaya dabcan waxaa laga yaabaa dad badan in arrintaasi ay inta badan ama ka yaraato ama ay fahmi waayaanba meel laga soo celiyo marka waxaa leeyahay zoom waad soo dhawaysan kartaa intaad doontid waadna iska fogoyn karaysaa inahaas waa environment uu ka kooban yahay page-ku waxaa kaloo jira wax leedo oo ah aan qorin body oo laftigiisu aynu odhanno waa intan calooshan wax lagu qorayo wuxuu kaloo page-kan yeelanayaa waxa leedo header oo ah halkan sare hadda ay ku qoran tahay sahal software magacaas ka muuqan waa headerkii waa meesha page-ka xagga ugu sareysa wax walba lagu qorto iyo footer oo isna ah xagga hoose inta badan dabcan lagu qorto page numberka ama cidda waxaan qortay inta badan lagu qoro haddaan kor u qaado waa hoos number 1 baa dabcan iska yaala waa page numberkii dabcan oo haddaan page inter sii page laad imaanayo page 2 3 4 5 aan ka daawan doono casharka ma badinayo intaas ayaan kusoo koobaya waa iska introduction ama hordhici iyo environmentii barnaamijku ka koobnaa casharka ku xiga la soco oo kala soco ciwaanadan xagga sare kugu sheegay wixii su'aal ah waxaad igu soo qori kartaan emailada ka muuqanayay shaashada haddii alla idmo waa kuwaas emailada ka muuqanaya shaashada kuwan igu soo qorkan on mj@sahalsoftware.com ama support@sahalsoftware.com kaas aad ku soo hagaajintaa wixii su'aal aad qabtid ee aad soo weydiinaysa haddaan nahay bahda Sahal Software intaas ayaan cashar ku soo gabagabeynayaa